أحمد شرف فرقله وزيرka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee bartamaha dalka ayaa ka warramay dagaal saakid ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo sidoo kale kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ay Maleeshiya al-shabaab ka tirsan kula galeen magaalada Baxdo oo ka tirsan gobolka Galgaduud dhanka kale wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa tilmaamay in ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ay toogteen in ka badan 60 ka tirsanaa maleeshiyaadka nabadiidka weerarka soo qaaday. Bismillahir Rahmaanir Rahiim shirkiga jaraa'id aan ugu yeeray saxaafadda wuxuu daaran yahay saaka aroornimada hore ayaa kooxaha nabadiidka ee khawaarijka waxay soo weerareen magaalada Baxdo degmada Baxdo goor aroornimada hore ah dadka deegaanka iyo ciidamada halkaas joogay inta way ka digtoonaayeen waxaana ay ka bilaabeen afar xaafadood oo magaalada ay ka bilaabato rasaas waxayna soo galiyeen afar gaari oo xaafad walba ay gaari dhigeen ugu talagaleen ay ku qarxiyaan laakiin ilaahay filigiis dadka deegaanka oo culimada iyo ciidamada qaybaha kala duwan daraawiishta Galmudug iyo ciidanka danab oo awalba heegan ku ah deegaanka ayaa arrinkaasi ka hortagay si la yaab lana uga hortagay waxaana saacada ka bacdi laga saaray magaalada ayagoo lagu baacsanayo hawdka fog miyiga ah meydkoodana la waray dariiqyada magaalada afartii gaarina ayoo aan qarxin lagala wareegay meydkooda iyo dhaawacoodana oo tiro beelay intii yar hartana lagu baacsanayo miyiga fog magaalada ciidamada soo majeestayaasha ee daraawiishta Galmudug iyo kuwa danab oo iskaashanaya iyo dadka deegaanka oo culimada kaashanaya dadkaasoo maanta muujiyay arrin ku dayasho leh Soomaalidu inagoo dayatana leh baraha bulshada waa laga yaabaa inaad ku aragteen inda oo loo tacsiyanayo sheekhaas Allah u naxariisto wuxuu asagoo qorigu xabadda ridaya dagaalka qayb weyn uga jira mid ayaga oo dhaawacii oo ka tilaabsaday xabadda ku dhuftay anaga xaggayaga geeridu waxa weey waa sheekhaas iyo saddex caruura oo midba meel ay xabaduhu ugu tageen ayagana geeridoodu aad bay u farabeeshay meydka hadda la soo aruuriyay lagu soo aruuriyay magaalada dhexdeedana waxay sheegayaan inay aad u fara badan yihiin oo 60 kor u dhaafeen